مرشح مدحوينها Soomaaliya Umar Cabdiqaadir Axmed Fiqi oo maalmihii dambe Muqdisho ka waday kulamo uu la qaadanayo siyaasiyiinta madaxda dawladda federaalka iyo qaybaha kala duwan ee saamilayda siyaasadda dalka ayaa haddana waxa uu kulan heer sare la qaatay dhalinyarada midnimadoonka gobolada waqooyi kuwaas oo doonaya in sanadkan ay qayb ka noqdaan xildhibaanada baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya. dhalinyaradan oo doonaya in ay u tartamaan ka mid noqoshada mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka la soo dooran doono ayaa fariintooda ku aadan doorashada iyo sidii ay uga qayb gali lahaayeen waxa ay markaasi kala hadleen murashax madaxweynaha Soomaaliya Umar Cabdiqaadir Axmed Fiqi. murashax madaxweyne Umar Cabdiqaadir Axmed Fiqi ayaa ugu horeyn dhalinyarada gobolada waqooyi ee uu la kulmay kala hadlay xaaladda guud ee dalka waxaana uu la wadaagay qorshihiisa doorasho xilli uu u ballan qaaday dhalinyarada midnimadoonka gobolada waqooyi in haddii loo doorto xilka madaxweynaha Soomaaliya uu kaalin fiican ka siin doono ka qayb qaadashada siyaasadda dalka dhalinyarada ka soo jeeda gobolada waqooyi. geesta kale murashax madaxweyne Umar Cabdiqaadir Axmed Fiqi ayaa u sheegay dhalinyaradan uu la kulmay in uu diyaar u yahay sidii uu wax badan uga qaban lahaa shaqo la'aanta baahsan ee inta badan ay ka cawdaan dhalinyarada Soomaaliyeed. murashax madaxweyne Umar Cabdiqaadir Axmed Fiqi ayaa ka mid ah shakhsiyaadka ugu cadcad ee loo saadaalinayo in uu ku guuleysan karo madaxtinimada Soomaaliya waxaana kulankan uu la qaatay dhalinyarada gobolada waqooyi uu muujinayaa sida uu murashaxan ay uga go'an tahay in uu door fiican ka ciyaaro wax ka qabashada shaqo la'aanta ay mar waliba ka sheegtaan guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo sidii guud ahaan dadka loogu sameyn lahaa shaqo abuur. si kastaba Soomaaliya ayaa sanadkan isku diyaarinayso doorasho iyadoo waqtigii doorashada dib looga dhacay kadib markii la isku fahmi waayay hanaanka doorashada dalka waxaana dhowr jeer oo hore uu murashax madaxweyne Umar Cabdiqaadir Axmed Fiqi uu ka dhawaajiyay muhiimadda ay leedahay in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah isla mar ahaantaana la isla ogol yahay. ururka dalladda midnimada gobolada waqooyi oo ka kooban garabyada isimada dhaqanka haweenka dhalinyarada iyo murashaxiinta xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka ay ka soo jeeda Somaliland waa markii ugu horeysay aanu anagoo sidan u dhameystiran dhammaan qaybaha ururku uu kulan sidan u ballaaran uu la yeesho murashaxiinta u tartamaya kursiga ugu sarreeya qaranka taasoo ay sabab u ahayd runtii barnaamijka siyaasadeed ee baraha bulshada ku jira ee uu leeyahay murashax madaxweyne Umar Cabdiqaadir Axmed Fiqi oo aanu meelo badan ama qaybo badan aanu isku aragtinahay ka nahay maadaama ururkan dalladda midnimada gobolada waqooyi yahay urur ka madax bannaan qaybaha isbahaysyada muxaafid iyo mucaarid intaba oo aanu jirin ururkani cid gaar ah oo si gaar ah uga ololeeyo. runtii waxaan uga mahad celinaynaa murashax madaxweyne Fiqi oo gartay in uu nagu marti qaado xafiiskiisa campaignka doorashada kulankeegan oo daaranaa iswaraysi iyo wada hadal ka dhan ah arrimaha maanta xaaladaha dalka uu ku jiro ee kala guurka ah ee doorashada taas oo aanu iskaga si qoto dheer aanu iskaga wareysanay arrimahaas iyadoo ay saxaafadu dibajoog ka ahayd. saa darteed waxaan ummadda Soomaaliyeed dhammaantood aan halkan aan fariin uga soo gudbinaynaa barnaamijka siyaasadeed ee uu leeyahay murashax madaxweyne Cabdiqaadir Axmed Fiqi oo ka madax bannaan kooxaha ama kudladaha isbahaysiyada dhinacyada ku hirdamaya siyaasadda aad wada ogtihiin hadday tahay mucaarid iyo hadday tahay muxaafidba murashax madaxweynahan inay ummadda Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa inay u dhug yeelato inay u aragti yeelato inay daristo inay dib u raacdo in ay murashax madaxweynahan runtii barnaamijkiisa siyaasadeed uu anagu ka urur ahaan aanu aad iyo aad ula dhacnay.